ومحسنتاي عبد الرشيد الرشكا هدي أن وربحين كوبان كاسيو Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika Soomaalida ugu horeysay dalkani Koonfur Afrika waxa ay soo gaartay sanadii 1996 laba sano oo kadib markii gumaystaha dalka Koonfur Afrika ay iska kor qaaday xilligaasi oo Afrikaan badan ay u arkeen in ay tahay xilli mudan oo la aado dalka Koonfur Afrika maadaama dalka Koonfur Afrika uu kamid yahay wadamada dhanka dhaqaalaha ugu horeeya qaaradda Afrika balse Soomaalida ayaa inteeda badan waxa ay soo gaareen dalkani Koonfur Afrika sanadii 2000 qiimeyn la sameeyay sanadii 2008 lagu sheegay in ay gaarayaan ilaa 60,000 oo muwaadiniin Soomaali ah hadii aan u weecdo dhanka ganacsiga Soomaalida waxa ay ku leedahay dalkani Koonfur Afrika ganacsi xoogan inkastoo ganacsigaasi intiisa badan ay ku leedahay goobaha ka fog magaalooyinka waaweyn oo ay dhibaatooyin dhanka ganacsiga ah ay kala kulmaan mararka qaar hayeeshee iminka ayaa Soomaalida waxa ay ku sii baahaysaa magaalooyinka waaweyn oo ganacsigoodana waa mid si xawli ah u socdo hadii aan u soo noqono dhanka ammaanka sida Cabdirashiid oo ka warqabto ammaanka dalka Koonfur Afrika waa mid la socda horumarka ganacsiga Soomaalida ay ka sameynayso dalkani waxa ayna inta badan ay la kulmaan weeraro iskugu jira dil daawac iyo boob loo geysta hadii aan dhanka dawladda u dhaadhaco runtii Soomaalida ku nool dalkani Koonfur Afrika dhibaatooyin badan kuma qabto dhanka dawladda hadii aan u noqdo faa'iidada ay ku qabaan Soomaalida ku nool gudaha dalka kumanaan kun oo Soomaali ah ayaa ku tiirsan ganacsatada Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Koonfur Afrika sida aad la socoto Cabdirashiidow xubno ka socda baarlamaanka Soomaaliya ayaa dhawaan soo gaaray dalkani Koonfur Afrika kuwaasi oo ka qayb qaadanayay kulan looga hadlayay arrimaha Afrika waxa uu shirkaasi ka dhacay duleedka magaalada Johannesburg ee dalkani Koonfur Afrika kulankaasi waxa looga hadlay dhaqaalaha qaaradda Afrika ammaanka iyo waliba sidii loo horumari lahaa inkastoo dhalinyaro badan loo jeediyay hoggaanka iminka hayaha baarlamaanka qaaradda Afrika waxa ka soo qayb galay xubno ka socday ee baarlamaanka Soomaaliya oo ay kamid ahaayeen Cabdi Xukun iyo Sareeda Cabdalla markii uu shirkaasi soo idlaaday kadib ayaa waxa ay la hadleen TV Universal Sareeda Cabdalla ayaa waxa ay sheegtay in xilligani loo baahan yahay in la soo afjaro qorshaha midowga Afrika ee ku aadan ciidamada Soomaaliya jooga kuwaasi oo waqtigooda u dheeraaday waxa ayna Sareedo carabka ku adkaysay in xilligani loo baahan yahay in la kobciyo ama taageero la siiyo ciidamada militariga dalka Soomaaliya waliba dhismo xoog la geliyo xarihii hore ee lahaayeen ciidamada qaranka Soomaaliya annaga wax noogu daran waa security-ga Afrika security-ga African Union mission waa jooga laakiin waxaan rabnaa in la soo afjaro waxaan dheeraaday ciidankaanana la xoojiyo oo ciidamadaana ay noqdaan xariyahoodii caadiga ah ay lahaan jireen in loo hagaajiyo oo annaga ciidamadii Afrika lambar 1 aan ahaan jirnay sidii in mataqaana ciidanka uu ku socdo il iyo saxiix iyo hooy iyo magaca mishaar lagu bixiyo ayaan rabnaa hadii Ilaahay yiraahdo waxa ay Sareedo sidoo kale sheegtay in ay ciidamada ay ka qayb qaadan karaan amaba ay hana karaan ammaanka dalka Soomaaliya hadii ay helaan tasiilaad ku filan Cabdirashiid